kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay maxaa ku cusub saxada kubadda cagta muuqaalkeena maanta waxaanu ka eegi doonaa xidigaha seegaya kulanka maanta ee Manchester United iyo Arsenal u dhaxeeya koorta Thiago Alcantara oo soo laabanayo Chelsea oo maamuusa daafaceeda midig ee Reece James sidoo kale waxaan wararkaaga hayaa Haaland Mitrovic iyo Mendy iyo wararkii ugu dambeeyay muuqaalkeena intaana bilaabin saaxiibayaal like saara sina share gareysa saxaab badan oo gaaro haday tahay markii ugu horeysay soo booqatana fadlan rukumo oo kambalelkana fursad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqaaqa suuqa kaliibsiga iyo waxyaabaha ku cusub kooxdaada marnaba soo dhawaada saaxiibayaal hadaynu ku bilowno kulanka maanta u dhaxeeya Man United iyo Arsenal horta sanadihii ugu dambeeyay maynaan arki jirin kulanka u dhaxeeya Man United iyo Arsenal oo sidan xiiso iyo xamaasad u leh sanadkanna Arsenal oo fikta sare oo horyaalka joogta iyo Man United oo qaab wanaagsan ku socoto kulmadeedii ugu dambeeyay ayaa maanta foodistari doona waxaana sababtoo xiisaha u yeeshay waxa weeye labadan kooxood sanadihii ugu dambeeyay waa ka jabnayd laakiin sanadkan waxaad moodaa in motorku uu kacay oo labadan kooxood ay aad uga fiican yihiin sanadihii dambe haddii eegno kulamadan xidigaha ka maqnaan kara Arsenal waxa markii hore shakil gelinayay goolhayeeda Ramsdale Odegaard iyo waliba Zinchenko balse imika waxa leeyahay labada xidigahaasi waa tam waxa ka maqnaan kara labada xidiga khadkeeda dhexe ee Thomas Partey iyo waliba Elneny sidoo kale United waxa dhaawac ka maqan Martial oo hal kulan oo kaliya horyaalka Premier League ciyaaray kulankii Liverpool oo kaliya u ciyaaray xidigan iyo kulamadii kale oo dhan horyaalka waa ka maqnaa wali waa ka maqnaan kara waxa la filayaa in maanta kulankani Arsenal lagu soo bilaabi karo xidiga koox cusub kooxdaasi Manchester United Casemiro ayaa la filayaa in Erik ten Hag ugu soo bilaabi karo sidoo kalena waxa maanta qayb ka ah saxiixay ugu dambeeyay kooxdaasi Man United soo qaadatay Anthony oo la filayo in Erik ten Hag uu bedel ku keeni karo amaba uu ku soo bilaabi karo labadan kooxood ee Man United iyo Arsenal waxay kulmeen 60 jeer horyaalka Premier League 25 kamid ah waxa badisay kooxdaasi Man United halka Arsenal ay badisay 17 jeer 18 kalena ay barbar galeen Arsenal waxay Old Trafford ay garoonkana soo booqatay 30 jeer kaliya 4 jeer ay gool la laabatay dhanka kale Haaland waxa horyaalka Premier League shantiisii kulan ee ugu horeeyay ka dhaliyay laba hat-trick balse Cristiano Ronaldo 151 kulan ay ku qaateen hat-trickiisii koobaad ee Premier League oo dhaliyay mise og tahay in Messi uu laba hat-trick uu ka dhaliyay kooxaasi Premier League isagoo oon ka ciyaarin horyaalkaasi Premier League Chelsea waxa leeyahay waxay maamuusa daafaceeda midig ee Reece James oo Todd Boehly uu arko 22 jirkan mid kamid ah shumacyada kooban ee ka dhex baxaya Blues laacibkani oo sanadihii ugu dambeeyay kooxda qaab ciyaareedka ugu soo bandhigay aad u qanacay sanadkan waxay qorsheynaysaa kooxdaasi Arsenal inay ka dhigto daafaca ugu mushaharka badan taariikhda kooxdaasi Chelsea laacibkani waxa uu 4 kulan oo isku xigaba uu gool ama dhalinaya ama caawin u sameynaya kooxdiisa halka xilli ciyaareedkii hore oo 6 gool uu dhaliyay kooxdaasi Chelsea 10 caawin uu sameeyay Chelsea waxay imika ay soo bandhigaysaa laacibkan heshiis cusub oo ay damacsan tahay inay soo bandhigto daafacani waxayna doonaysaa inay ka dhigto daafici ugu mushaharka badnaa abid taariikhda kooxdaasi waxaana inay damacsan tahay kooxdaasi Chelsea in 6 sano ay soo bandhigto xidigan oo lagu daray 1 sano dooqa oo ay la gaari karto sidoo kale Thiago Alcantara ay waxa la filayaa tababarka inuu bilaabi doono Isniinta ee maalinka bari ah laacibkani oo dhaawac muruqa uu ka soo gaaray kulankii furitaanka horyaalkaasi Premier League kooxdiisa Liverpool ay lahayd kooxdaasi Fulham ee barbaraha 2-2 ay la gashay ee qaybtii dambe kadib laacibkani markii dhaawac muruqa uu ka soo gaaray bedel lagu saaray tan iyo markaasiba kooxdiisa waa ka maqnaa maalinka Isniinta ay bariyaha ay tababarka ku soo laaban doona waxaana la filayaa in kulamada championka uu qayb ka noqon doono in laacibkani Mitrovic wariyaan kooxdaasi Fulham ee kamid ah wariyahanada kooxdani muhiimka ah ee sanadkanna u horseedka ah in kooxdan ay dib ugu soo laabato horyaalkaasi Premier League ayaa waxa uu noqday Serbianka ugu goolasha badan taariikhda horyaalkaasi Premier League
kadib markii kooxdaasi Tottenham uu ka dhaliyay goolkiisii lixaad ee xilli ciyaareedkan. Mitrovic Fulham ciyaaraya kulankiisii koobaadba Liverpool 2 waa ka dhaliyay. sidii waa u dhalinaya in 6 gool ayuu maraya sanadkani. gool dhalinta ku soo dhaweysay Harry Kane iyo Haaland ku soo dhaweeyay markuu Tottenham goolkiisii lixaad uu ka dhaliyay. waxa uu noqday taariikhda Serbian ugu goolasho badan leh horyaalkaasi Premier League. Thomas tobara kooxdaasi Chelsea Thomas Tuchel waxa uu sheegay in Mendy oo soo laabanayo kulamada Champions League ee salaasada ay kooxdaasi Chelsea ay leedahay. waxay leeyihiin Mendy goolhayahan muhiimka noocahay waa soo laaban kara kulamada kooxdaasi Chelsea ay ciyaarayso horyaalkaasi Championka ee salaasadan. saasna waxa sheegay tobara kooxdaasi Chelsea Thomas Tuchel. waxaanu kalsooni weyn ku qabaa in laacibkan uu ku soo laabto kulamada kooxdaasi Chelsea ay ciyaari doonto Championka ee maalinka salaasada dib u furmi doona. dhanka kale labadii suuq ee ugu dambeeyay sanadkan 2022 kooxdaasi Barcelona waxa uu yahay laba suuq oo u suntan oo taariikh weyn u ah. labadii suuq ee ugu dambeeyay Barca maxay sameysay sanadkan 2022 waxa ay la soo saxatay 14 sax oo waaweyn oo qaarkood jirtaba kooxda ay ka bixin iyagoo muddo kooban joogay. tani markii kooxda Lionel Messi ka baxay waxaad moodaa kooxdan isfahantay markii aragtay kooxda dhankii ciyaartoyda ka sii kacaysa oo ciyaartoy waaweyn la waayay. waqti waa jirtay kooxda Messi oo ay eeganisay oo ciyaartoy waaweynba kooxda aanay joogin oo Dest iyo Mohamed Badri ciyaartoy waaweyn imka noqdeen waqtiga ciyaartoy Ronaldo Araujo oo khibradan lahayn ay kooxda wada joogeen. laakiin haddeer kooxdu waa isfahantay saxiix waaweyn bay keentay labadii xagaaga ugu dambeeyay. waxaana ka xusi karnaa saxiix waaweyn ay keentay Christensen Lewandowski oo wacdareynaya kooxda 4 kulan oo ciyaar horyaalka liiga durtaba 4 gool maraya. Rafinha waxa ay kooxdiisa hore Sevilla suula ficiltamay goolka ugu dhiibay aynu arkaynay Chiesa, Rafinha, Eric Garcia, Luka Dio iyo sidoo kale Aguero, Dani Alves, Aubameyang, Bellerin oo ahaa saxiix ugu dambeeyay kamid ahaa Marcos Alonso, Depay, Ferran Torres iyo waliba Adama Traore. haddana saxiixda ay sameeyeen waxa ka baxay kooxda 5 xidig oo Aubameyang iyo Dani Alves iyo Aguero iyo Luka Dio iyo Adama Traore kooxda waa ka baxeen oo waa laga takhalusay. waxaanay joogeen wax ka yar 8 bilood. xidigahaasi farabadan bay xagaagan sameysay kooxdaasi Barcelona. dhanka kale haddii eegno Messi, Neymar, Mbappe oo sanadkani aad u wacdareynayad moodo sidii hore sanadkii hore si ahaayeen inay aad sanadkani uga duwan yahay way aad iskula qabsadeen oo kulankan waxay sameynayaan xagaagan aad looga yaaban yahay. Messi ay 6 kulan ee ciyaaray durtaba horyaalkaasi League 1 waxa uu dhaliyay 3 gool halkuu 6 assist uu sameeyay. 6 kulanba 6 assist uu sii maraya halka Neymar isaguna uu aad u wacdareynay sanadka laga yaabay oo 7 gool iyo 6 assist isaguna uu marayo. Mbappe oo isaguna wax assist ma sameyn xagaagani laakiin 7 gool ayuu maraya. kulankii ugu dambeeyay xalay Lionel Messi 2 gool oo dhaliyay oo isagu ka caawiyay. Messi, Mbappe iyo Neymar sanadkan waa laga yaabay waxa leeyahay tobara kooxdaasi Galtier cusub aad waa ugu duwan yahay. Thomas waa aad waa ugu duwan yahay tobabarii hore reer Argentina. waxa leeyahay aad bay sanadkan isula jaan qaadeen Champions League sidee maar loogu heli doonaa. sanadkii hore waxay haayeen xidigo aan isfahmin oo isku cusba laakiin waxa leeyahay sanadkan sidii hore waa ka duwan yahay oo tobaro cusubna waa qabsaday waana isla jaan qaadeen. wararkeena ciyaar wanaag intaas saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.